markii biyo Hargeysa soo galeen qasabada Hargeysa ku jabeen dad badan oo reer Hargeysa oo biyo weligood arag qaarkood ay ku jiraan 30 jiro aan qasabad biyood baarag ay biyaha arkaan marka magaalada biyaheeda in loo maamulo si la jaan qaadaysa sida caasimada adduunka biyaheeda loo maamulo oo ah qorshe aynu ku soconaa in mashaariic socota si wanaagsan loo maamulo si wanaagsan maareeyaha wakaalada biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in la suuro gelinayo in dhuumaha biyaha ka soo qaada ceelasha Geedeeble lagu xiri doono barkado waaweyn oo laga hirgeliyay 5 kamid ah degmooyinka magaalada Hargeysa arintani oo uu ku tilmaamay guul waxaana maareeyuhu ku wargeliyay shacbiga in maalmaha Sabtida Axadda iyo Isniinta toddobaadka dambe uu hakad ku iman doono biyaha magaaladu ay heli jirtay inta ay soconayso shaqadu waxaan maanta halkan idinku yeernay inaan la wadaagno bulshada reer Hargeysa ogeysiis muhiim ah oo ah in maalmaha Sabtida Axadda iyo Isniinta wiiga soo socda oo noqonayso bisha toddobaad 20ka bisha 21ka bisha 22ka bisha saddexda cisho maalmaha Sabtida Axadda Isniinta inay wakaalada biyaha Hargeysa iyo shirkadaha kala shaqeeya mashruuca biyo-gelinta magaalada gudaheeda ee Hargeysa ay qaban doonaan shaqo muhiim ah in la isku xiro nidaamka biyaha hadda shaqeeya ee magaalada biyaha keena iyo nidaamka cusub ee magaalada laga hirgeliyay oo ah barkadaha cusub oo tiradoodu tahay 4 barkadood oo waaweyn iyo 160 kiiloomitir oo baabka cusub oo shaqadaasi ay dhamaatay badideedu 90% ka badan ay dhamaatay oo ah mashruuca weyn ee dawladda Jarmalku gaar ahaan bangiga horumarinta Jarmalka ay dawladda Jarmalku naga taageero iyo mashruuci isaguna hore u dhamaaday naga taageertay shirkadda Coca-Cola Africa Foundation oo isaguna ahaa 260 kiiloomitir iyo 4 barkadood oo sii daba yaala in dhuumaha biyaha ee gaar ahaan Jarmalku naga taageero 166 kiiloomitir sare u dhaafaya iyo 4 barkadood oo waaweyn laga hirgeliyay degmooyin kala duwan caasimada lagu xiri doono beebka weyn ee biyaha magaalada Keena ka yimaada ceelasha Geedeeble lagu xiri doono taasina ay ku keeni doonto biyihii magaalada Yemen 3 bisha 21ka bisha 22ka bisha toddobaad saameyn amba hakad ay ku keeni doonto ay saameyn doonto bulshada si ay ula socoto hakadka ku yimid uu yahay waxyeeladii inaanay jirin ay tahay horumar ama guul aynu gaarno ah in systemkii cusba ama nidaamkii cusba biyo-gelinta magaalada Hargeysa lagu xiro nidaamkii shaqeynay si barkadaha cusub loo biyeyn karo taasi waxay noo qaadaysaa in aynu ku dhawaanayno gabagabadii wajiga labaad ee mashruuca biyaha Hargeysa isagoo wajiga koowaad ee mashruuca biyaha Hargeysa la dhameystiray October 22 bishii 10 October 2022 la furay si rasmi loo furay kaasoo saddex laabay tirada biyaha magaalada timaada runtii ka badan labin laabay dadkii qasabada biyuhu u xidhnay magaalada Hargeysa waa mid kale waa guul kale oo aynu ku sii siqayno inaan maanta joogno inuu dhamaaday mashruuci biyo-gelinta magaalada Hargeysa gudaheeda ka socday gaar ahaan dhowmihii biyaha iyo barkadihii waaweynaa ka badan 90% la iskuna xiri doona maalmaha soo socda taasoo ku yara keeni doonta hakad dadku waxay ka warwaraan ma jirto waxay ka cabsadaan ma jirto sabab biyo badan loo kaydsadaan ma jirto shaqadaas saddexda cisho naga dhamaanaysa insha Allah alaydanki wax dhibaato kale la filayo ma jirto wax ciladiina ma jirto dadku sax loo socdaan wakaalada biyaha Hargeysa shaqada ay uga mas'uulka tahay bulshada reer Hargeysa iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waa mid si wanaagsan loo maamulo waa mid ay ku jirto isla xisaabtan mid ay ku jirto aragti dheer oo ah magaalada biyaheeda in loo maamulo si la jaan qaadaysa sida caasimada adduunka biyaheeda loo maamulo oo ah qorshe aynu ku soconaa in mashaariic socota si wanaagsan loo maamulo si wanaagsan loo dhameystiro isla marhaanta wakaaladu ay ku darto inay hirgeliso mashaariic kale waaweyn oo inuu ku maalgelinayno oo kamid yahay dhaamka qoray oo isaguna hadda gabagaba ku dhow dhaamka labaad ee Hargeysa oo isaguna qorshihiisu socdo way mahadsantahay warbaahintu ogeysiiskaas aan la wadaagnay dhanka kale maareeyaha wakaalada biyaha Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xaddiga biyaha ee hadda magaaladu ay hesho iyo biyaha soo kordhi doona marka si rasmi ah loo soo gabagabeeyo mashruuca labaad ee biyo-gelinta Hargeysa biyaha magaalada Yemen jiray 6500 mitir maalintaas marka si sax loo xisaabiyo saacadaha lagu eego ilaa 19 ku dhaweeyna biyaha magaalada Yemen hadda mashruuca wajigiisa labaad shaqada ugu muhiimsan waxa weeyaan waa shaqada barkadaha waaweyn ee magaalada laga dhisayo iyo dhuumaha biyaha oo 4 barkadood waaweyn laga kala dhisay degmooyinka Axmed Gacan Libaax Maxamuud Haybe Axmed Dagax iyo kii dhexe magaalada ku yaala halka degmada Ibrahim Koodba ama keydka hore Hargeysa ku yaala 160 kiiloomitir shaqada ugu weyn ee noo taal mashruucan waa taawaana gabagaba ku dhow markaynu soo xidhnay iminka aynu isku xidhno si buuxda loo jaabiyo waxaan dhameystiri doonaa wixii ceelasha bar baa noo dhameystiran in baynu weli gacanta ku haynaa markaas aynu soo saari doonaa xagga tirada biyaha maxaa iska bedelay laakiin mashruuca biyaha Hargeysa
wejigiisa labaad shaqada ugu weyn ee hirgelaysa waxa weeyaan waa kaabayaasha biyaha waa dhuumaha waa barkadaha waa beebkii hore magaalada oo jiray meelo kooban buu gaari jiray oo runtii badi magaalada dabooli doona tan inoo hirgelaysa waa taasna maanta waa gabagaba lama hadii waana shaqadii ugu adkeeyay socotay maanta in la isku xidho nidaamka biyaha Hargeysa ee hadda shaqeynaya ka cusub waxay noo sii dhaweynaysaa in mashruucaasi taabo galo oo hawl galo waana hawl ay wakaalada biyaha Hargeysa ku hoolantahay habeenimo maalinba midun baan ku darnay xagga taxadirto ilaa mashruuca xariga laga jarayo waan doonaa dadka taxadir baan ku wadnaa waayo waxa jiray muddooyin badan oo dadka reer Hargeysa balan qaadiyo aan hirgelin loo sameeyay si taa looga fogaado mashruucan biyaha Hargeysa runtii iyadoo shaqo badan socoto caqabadaha haysta waxa kamid ah dadka shaqooyinka badan inaan runtii kalsooni badan ku qabin ilaa la furay wajigii koowaad mashruuca biyaha Hargeysa October 2022 markaas ay dadku aamineen in mashruucan mashruuc dhabayay markii biyaha Hargeysa soo galeen qasabada Hargeysa ku jabeen dad badan oo reer Hargeysa oo biyo waligood arag qaarkood ay ku jiraan 30 jiro aan qasabad biyood baarag ay biyaha arkaan marka inaan isku xidhno beebka magaalada biyaha Kenya iyo barkadii cusbaa iyo dhuumii cusbaa marka dhuumaha cusub marka la isku daro labada mashruuc ka weyn ee Jarmalka iyo Kaayare Coca-Cola ay noo maalgelisay Coca-Cola Africa Foundation dhuumaha biyo waxay sare u dhaafayaan 280 kilomitir halka kaydadka biyuhu ay noqonayaan qiyaastii 9 kayd oo kala duwan 4 kayd oo Coca-Cola ay maalgelisay 4 kayd oo weyn oo mashruuca weyn ee Jarmalka ah oo kuwa badi magaalada dabooli doona iyo kayd yar oo isaguna ku yaala barkada weyn dhexdiisa oo isaguna dadkan barkada la leefalkii biyaha ma helaan imka barkada weyn Hargeysa oo xagga kala sareynta dhulka iyo xasaas aamen kale marka waa 9 kayd marka infrastructure-kaas waxay noqon doonaa kaabayaasha maanta aynu isku xidhanaa waxaan rajaynaynaa noqdo qaar boqolaal sano soo socda magaalada Hargeysa ay ku masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121